waxaa halka kan inoogu isugu nimi inaynu dib u milicsano hawl sanadeedkii 2018 ilaa 2019 ee adeeg bixinta fidsan ee dowladaha hoose wixii inoo qabsoomay wixii inaga baaqday iyo caqabadaha jira iyo xal u helidooda iyo higsigeena mustaqbalka waxaynu kala oo diiradda saaraynaa doorarka kala duwan ee ay kala leeyihiin hay-adaha dowladda dhexe ee Puntland iyo dowladda hoose iyo qaababkooda wada shaqayneed ilaa iyo iminka waxaa inoo qabsoomay waa hawlihii adeeg bixinta ee tijaabada ahaa ee 9 degmo uu ka hawlgalo mashruucan GPLG ay iska kaashadeen dowlad goboleedka Puntland iyo hay-adaha qaramada midoobay sidaa daraaddeed waxaynu u baahannahay inaynu dadaalkeenna intaa kaasii baahino oo aynu degsanno tub inoo hagaagsan sidii hadba degmo ama laba hor leh looga hirgelin lahaa adeeg bixinta baahsan waxa kale oo muhiim ah inaynu ka wada hadalno sidii aynu uga gudbi lahayn hawlaha tijaabada ah ee la daadajiyay ugana gudbi lahayn adeeg bixin baahsan oo koobaysa hawlihii ay bixin lahaayeen degmooyinku si aynu taa u helno waa inaynu samaynaa isku tashi gudaha ah dowladda iyo shacabka laga wada qayb galayo sidaa daraaddeed wixii sharaxaad ahaa waxaa inoo sharaxay wasiirka arrimaha gudaha oo halkan hadalkiisii ku soo koobay anigu inaan warbixintaa yar maxay tahay bixiyo oo aan shirkii inoo furayaan isu soo taagay aad iyo aad baad u mahadsantihiin shirkiina si official loogu furan yahay